markii aan tagnay wuxuu ku dhahay guriga kusii geynay xaafada Quusutuuriya kadib waxba ii soo gaday oo dadka maaragtay ku sarqaamayaan oo miirku ka tagayo ii soo gaday cabitaan buu ii soo gaday animaan ogeyn inuu wax ku soo darayo in kale kadib marka cabitaanka aan cabay baa igu dambeysay inaan miir dhawn bay igu dambeysay kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisa keenay wuxuu iga duubay filin anigoo maaragtay aan hayn qof maaragtay halkii kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo alaaba ka daawan jirteen warbixinadii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah markaas la isla hadalhayo fadlan daawada waxaan ka codsanayaa oo si xushmad leh kaaga codsanayaa ha ilmaamin inaad subscribe nagu dhiirigelisid furana gambeelka yarkaasi aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee halkan ka hela warbixinada aan soo galino ku mahadsanid warbixinteena maanta waxaynu ku soo gudbinaynaa gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Farxiye Cabdullaahi gabadhaasi oo wiil ay saaxiibo yihiin ama ay xiriir wadaag ay yihiin oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xuseen uu khiyaamay gabadha ayuu goor habeen ah wuxuu ka codsaday in hadii ay jeceshahay ay la wadaagto muuqaal jirkeeda oo qaawan wiilka ayaa gabadha waxa uu u soo bandhigay inuu aad u jecel yahay iyaduna haday cadeynayso inay jeceshahay ay u soo dirto muuqaalkeeda oo qaawan Farxiye ayuu wuxuu ku ballamiyay hotel asagoo ay soo raaceen sida aad muuqaalka ama codka gabadha aad ku soo dhageysateen Farxiye ayaa markii dambe waxa la geeyay meel guri ah isagoo ka duubay muuqaal ay qaawan tahay jirkeeda ay sameeyeen u qarsanayn wiilka Cabdiraxmaan ayaa khiyaamay gabadha Farxiye isagoo wiilal saaxiibadiis ah la wadaagay muuqaalkii saacadii ugu dambeeyay muuqaalkan ayaa dhex mariyay Facebook iyo meelaha baraha bulshada ku xiriirto sida WhatsApp-ka Telegram-ka gabadhan ayaa si fudud ku aamintay qofkan ayaa u dhaqmay sidii wuxuushkii isagoo gabadhaasi Soomaaliyeed khiyaamayay Farxiye ayaa cadaadis aad iyo aad u kulantay waalidkeeda oo aad uga xanaaqay falkaas foosho xun balse jacaylka waalida ay u qabtay wiilkaasi ayaa ka keenay waxaan kula talinaynaa hadii aan nahay bahda Brothers Media Group in gabdhaha Soomaaliyeed ay iska tijaabiyaan cidda ay aaminayaan oo aysan si fudud qalbigooda ugu dhiibin qof kale hadii aad nagu cusub tahay daawada nagu soo biir oo subscribe saaro channelkeena si aad uga noqotid daawadayaasha ugu horeeya ee la warbixinada aan soo galin ku mahadsanid intaan warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmi doono daawadayaal waxaan idin kaga tagaynaa sidaas nabadgelyo